السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabteeda qaaliga meel kastoo aad joogtiin. maanta waxaynii wadaa quraac aad iyo aad u fudud oo maasha Allah waxyaalo fudud aan ka sameyn doono, sidoo kalena weydka ka dhimayso, ku caateynayso hadda caato u baahan tahay, haddii aad caafimaad u baahan tahay maasha Allah caafimaadka u wanaagsan inaba aan caadi ahayn. waxyaalo badan oo faa'iidana ay ku jiraan. waxaan ka sameynaynaa timir, boorash iyo yogurt. waxyaalaha ka sameyn doono malaba ku jiro, marka waxyaalaha ku sameyn doono waa isla arki doona asxaabteeda qaaliga. soo dhawaada insha Allah biidnillah. alaabtan aad iyo aad u fududahay, qarash badan ma kaaga baxaayo, waxaa laga yaabaa in guriga ku taalo. marka waxyaalahan ka sameysanay iyo sida u sameysana ay isla aragna asxaabteeda qaaliga. ugu horey waxaan soo qaatay 3 xabo timira oo aan galka ka soo bixiyay. waxaan kaloo halka ku haystaa koobabka shaaha lagu cabo, ama wax walba aad ku cabti, kafee ku cab, shaah ku cab, qaxwo ku cab. koobka ugu yar ayaa soo qaatay oo biyo ku jiraan. marka biyahaas hadhow ayaan isticmaali lahaa aniga. marka waxaa sameynaya xoogaa yar timirtayda adag, marka waxaan doonayaa inaysan qalaadadii waxaas aysan hadhow i dhibinin ka shiidayo. marka biyahan ku radinayaa muddo, waxaan sugayaa ilaa 2 saac ilaa 3 saac ayaan sugayaa insha Allah biidnillah. biyahan ku sirsanaya, biyahaas hadhow ayaan ku darsan lahaa, laakiin hadda timirtan ku radinayaa. timirta markaa ku radiyo ka bacdi daaseed biyaheena saasa ku haysana. laakiin adiga haddaada timirtaada radinin biyaha caadi ugu darsanaysaa. qiyaas ahaana ma aan koobka ugu yar aan isticmaalaya. adi haddaa rabto quraacdaada inay ku badato xogaa yar biyaha ku kordhisan kartaa, laakiin biyaha isaga badinin insha Allah biidnillah. waxyaalaha kale aan ku sameysanayno ayaa ku kordhisanaysaa, sida boorash aan ku sameysan doono insha Allah biidnillah. asxaabteeda qaaliga aan jeclahay, alaabtan healthy leedahay, caafimaad ay leedahay, waxyaalo badan ay ku faa'iido badan ay leedahay. marka hadda timirteeni waa tanaa 2 saac 3 saac inoo radsaneyd saan inoo noqotay maasha Allah. waxaan kaloo halkaa ku haystaa yogurtka baleenka oo ujeedin. timirtan saasay noo noqotay. marka yogurtka baleenka oo micnaha strawberry waxyaalahaas isku jira, baleenka cad waaye. maasha Allah yogurtka waxyaalo badan uu leeyahay, fitamiinada ku jiro ilaa 2 fitamiina ku jirto, 3 fitamiin. maasha Allah weydka iyo waxaasna cayilka la dagaalamaa. waxaa kaloo halkaa ku jiro aan ku haystaa boorashka warshadaysan ayaa halkaa ku haystaa, ama adiga wax kasta oo sareen ka sameysan, iyo 2 qaado malaba maan haystaa asxaabteeda qaaliga. okay, ugu horey waxaan sameeyay, waxaan dabka soo saartay maqlaha. waxaana ku shubtay 4 qaado oo boorashka ah. qaadada ugu dambeysay oo ujeedin hadda ku daray, laakiin 4 qaado waaye. adiga haddii aad rabto quraac badan inaad sameysatid oo adiga abateedka garanaya soo maaha. marka 4 qaado 5 qaado 6 qaado ka dhiganaysaa boorashka. ujeedin hadda waa walaaqaya. sidoo kale timirta waxaa 3 xabo meesha ka tahay ayaad wax ka dhigan kartaa adiga ilaa 4 xabo. laakiin sunnada wanaagsan inaad sunnada aad micnaha sunnada aad mar walba ku sameysatid ayaa wanaagsan, oo 3 xabo ka dhigatid insha Allah. tira is dheer sunnada, siday micnaha sunnada iyo isku waafaqaan waxa sameysanaysid. maasha Allah baraka badan aad timirta ku jirto, faa'iidooyin badan ay leedahay maasha Allah. waxyaalo badan ay la dirirtaa, marka caafimaad badan ku jiro. alaabtaana quraac waaye, casho waa ka dhigan kartaa, cunto fudud waaye. marka maasha Allah brown marka noo noqoto ayaan waxaan sameysanaynaa sidaan ay brown noogu soo noqotay. baalkan waa soo dubanay ilaa adigu 2 daqiiqo waxaan dhameynaa dubaayay, adiga 1 daqiiqo iyo half ayaan dubaayay. marka waxaan soo qaatay qalaadada ayaan soo qaadatay, waxaan ku shubtay boorashka. 4 qaado boorashka ayaan qalaadada ku shubtay. waxaan kaloo ku shubanayaa 3 xabo timirtahayd oo aan soo radsaday, waa ujeedin saasay ahayd. marka isla markii ku shiidmaysa, adiga timir jilicsan hadaa haysatid dhib ma lahan, waxba biyaha isaga radinin, biyaha ayar ku darso. waxaan kaloo ku darsanayaa 3 qaado oo yogurt ah ayaan ku darsanayaa. qaadadii koowaad aan ku daray, qaadadii labaad iyo qaadadii saddexaad, waa ujeedin asxaabteeda qaaliga. marka waxaan kaloo ku darsanayaa waxaan noo haray, idinka ma fahmi kartiin, malabkii ayaa noo haray, malabka ayaan ku darsanayaa. marka wuu isku shiidaya alaabta intaan. markaan intaas ku daro waan isku shiidaya. intaasay ka sameysataa quraacdeena maanta. dab badan geli maysid, 10 daqiiqo wax ka yar ayaa ku sameysanaysaa. canjeeladii waxyaalahaas aan caafimaadka u wanaagsanayna meeqa saac la kor taagnaada waa iska fahmaysid idinkaba. marka alaabtan ilaa qadada waa ku joogi kartaa. waxaa kaloo sameyn kartaa
haddii aad rabtid inaa ama qadada usoo noqoniyo waxaas ilaa 3 saac 4 saac ku joogi kartaa ilaa quraacda waaweynka beerka iyo canjaalada iyo waxaas intaa ka gaaraysid. Marka alaabteena waa taas insha Allah biidnillah caafimaadka u fiican tahay way ku caateynaysaa haddaa caato u baahan tahay haddii caato awal hore u ahayd dhib ma lahan caafimaadka wax walba ka muhiimsan micnaha borotiin badan ku jiro masha Allah wanaagsan oo jirka u fiican ayaa ku jiro. marka ka faa'iideysta insha Allah biidnillah asxaabteeda qaaliga waa taas alaabteeni walaahi macaankeeda iyo markaad cunaysid ugu bogaysid waa ku raaxaysanaysaa xataa markaad cunaysid inaba caadi maahan aan ku dhahay. marka ka faa'iideysta insha Allah biidnillah soo dhawaada bilis channelkayga haddaa ku cusub tahay subscribe tahay iga bakhaynin lacag ma joogo sidoo kale like share asxaabtaada la share gare sidaad uga faa'iideystay ayadana si uga faa'iideystaan insha Allah waxaan isku dayay anigana mar walba inaan ina qanciyo waxyaalaha aad ka faa'iidiin aan keeno insha Allah biidnillah challenge-yadii waxyaalahaasna maan joojinay insha Allah waan soo gelin doonaa xogaa yar cilla farsamada iska jirto insha Allah inta ka horeysa isla joogi doonaa next video asxaabteeda inta ku kulmi doona waxaan ka tagay sidaas iyo nabad galiyo bye bye assalaamu calaykum.